walaal ka mid ah walaalaha aan aad u jeclahay ayaa wuxuu ila wadaagay qiso aad u cajiib ah oo ku saabsan qiraa'at alqur'aan. Wuxuu yidhi nolosha oo igu adag oo noloshu ay aad igu adag tahay oo weliba mararka qaar xataa marka aan tukanayo aanan ka run sheegin, weliba subaxii oo kale markay tahay oo aanan ka run sheegin inaan cibaadaysanayo, ayaa maalmaha ka mid ah waxaan u tegay waalidkayga. Kadibna wuxuu igu yidhi, aabbo, haddaad rabto lacag, weliba lacag baan weydiistay, haddaad rabto wax kasta oo wanaaga hoo kitaabka qur-aanka. Wuxuu ii dhiibay yidhi kitaabka qur-aanka ah. Kadibna wuxuu igu yidhi akhri, wax walba isaga ayaad ka helaysaa. Markaan akhriyey oo aan mudo maalmo ayaan aabbo u tago, waxaan ku yidhi, aabbo, wixii aan rabay weli ma hayo, oo yacni lacagtii ma hayo, dee xayraannimadii iyo maaragtay lacag la-aantii waa barteedii. welina maaragtay waan wadaa. inteen leeg baad wadaa? wuxuu yidhi xisib baan markaa wadaa, jus barkii ayaan akhriyaa oo weliba dee hamaansi iyo daal aan ku akhriyo. wuxuu igu yidhi buu yidhi, aabba ahlu qur-aan buu ahaaye, wuxuu yidhi dembigu waa adiga buu yidhi, qur-aanka waxba kamaad waayine adiga ayaa dembi ku dhex jira ee ka run sheeg noloshaada. wuxuu yidhi dhiirigelin buu isiiyey, waan waday xisib bay ahayd, jus bay ahayd. wuxuu yidhi markii hore aad buu u adkayd, yacni daalka iyo caajiska iyo qalbi jabka iyo maxay ahayday ilaahan baa maaragtay xaaladda ogaa. kadibna wuxuu yidhi saan sidii ugu waday ayaa waxaan soo gaaro yidhi inaan qur-aankii bal jus ku daro, sii macaansado, xisib ku daro, jus iyo xisib 2 jus ka dhigo. maalintii dambe ayaa waxaan ku dhahay buu yidhi, xoogaa nolosha markay soo kabtay, aabe hadda waxaan dareemayaa farxad. kadibna wuxuu igu yidhi, hadda ayaad noloshaadu ayaad ka run sheegtay buu yidhi naftaada, bimacnaa adaa dembiile ah ee qur-aanka waxba kuma doon. lacag haddaad rabto, nolol haddaad rabto, qur-aanka ku jirtaa, ee waxaa jira wax qur-aanku uu wax kugu diidayo. mithaal, salaadihiigaan si fiican aadan u tukanaynin, dad baad xamanaysaa, waqti badan baad iska dhuminaysaa. taas ayaa samaynayso qur-aanku wixii uu ka hadlayay inuusan ku siinin. oo ilaahay subxana wa tacala qur-aankaas wuxuu ku yidhi, midka aakhiro rabo iyo midka adduun rababo annaga ayaa gacantanada ku jirtaa. marka wuxuu yidhi heer waxaan soo gaaray markii dambe yidhi inaan akhriyo xisib, waxaan ka wadaa 3 jus 2 jus. aakhirkii waxaan gaarsiiyo yidhi inaan akhriyo subax, waxaana qur-aanka khatim. wuxuu yidhi waxaan wadaa muddo 6 sano ah, waxaana khatimaa buu yidhi isbuuciba 1 mar. la-aantii ma noolaan karo, farxad ma dareemi karo, nolosha way igu adag tahay, kama maqnaan karo. haddaan ka dheeraadana wuxuu yidhi waxaan dareemayaa culays. gurigiisa waxaa leeyahay dhowr kitaab. mucjizooyinka aan ku arkay wiilka waxaa ka mid a, gurigiisa markaad booqato iska fadhiisaa ku qabanaysa, maanta dhanba inaadan ka kicin. qabowga iyo deganaanta iyo xasiloonida minallaahi baad waxaad ka helaysaa xasilooni aadan arkayn meel ka socoto. isaga waad raadinaysaa, aaway baad leedahay, meeshuu joogaad ugu tegaysaa, waad la sheekaysanaysaa. waxyaalahan la yaabay waxaa ka mid a, wuxuu igu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala dad oo aada u gacan adkaa oo waalidkayga ka mid a ayuu ilaahay ii sakhira, oo qofba aanan wax siinin buu yidhi. qof kastaba afka dhulka u geliya, inta wax u ballan qaado uga baxa ayuu wuxuu yidhi ilaahay uu ii sakhiray buu yidhi, oo maanta aniga ii biilaya.